xarunta magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceergaaban waxa saaka isugu soo baxay taageerayaasha xisbiga mucaaradka UCID kuwaas oo muujinaya cudud taageero ay hayaan xisbiga UCID iyagoo socod ku soo maray jidadka iyo shariicada waaweyn ee magaalada Ceergaabo waxaana ugu dambeyntii taageerayaasha xisbiga UCID isugu soo biishubteen beerta xurriyadda ee magaalada Ceergaabo halkaas oo mas'uuliyiinta xisbiga UCID ee heer qaran iyo heer gobolba kala hadleen taageerayaashaasi ugu horreyn waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha xisbiga UCID ee gobolka Sanaag iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xisbigaasi waxaynu ku jirnaa waqti kala guur walaalo waxaynu ku jirnaa waqti doorasho walaalayaal marka halkan hadalka ma raba inaan badiyo qorrax baa taagan tihiin hadalka muhiimadiisu waxa weeye war waa arkayseen habeenkii dhaweytoole in lagu kala tagay in lagu kala tagay labada saddexda xisbi waad arkayseen habeen dhaweytoole wixii dhex maray waana la qiimeeyay shacabkaana qiimeeyay caalamka qiimeeyay meel walbaana laga qiimeeyay yarada shaqalaanta ka jirta Somaliland wayna wada ognahay war qofka kaliya ee hawsha iyo mishanka iyo dhalinyarada iyo shaqadooda gali karaya waa rugcada Soomaalida waxay tiraahdaa nin weyn baa ku dhaqi kara waana injineer Faysal Ali Waraabe waxaanu diidanahay aanu ka hortaaganahay qabyaalada waxaanu hortaaganahay TV-yada la iska caayayo waxaanu hortaaganahay wixii dhibaato qarankan iyo dadka maxay tahay Somaliland u keenaya ayay UCID ka dhidhidaa oo ay hortaagan tahay waxaan idin sheegayaa UCID inay ku ballan qaaday inay dadka naafada inay danyarta inay dhalinyarada inay kaaba culus u sameynayso dhaqaale cusub inay u sameynayso inay ciidamada qaranka wuxuu maxay kaabaha u kordhinayso inay iskuulada free ka dhigayso faraha guulaysto madaxweynaha dalka inuu noqdo Ilaahay ka dhigo waxa weeye maanta waxaanu halka isugu nimi waa maalintii koobaad ee aynu banbaxaynay waxaana nasiib u helay xisbigeena UCID waana wax lagu faano waxaan kale oo idin sheegayaa ma waa ogtiin musharaxiintii dooda gashay waxa wanka ka noqday gudoomiyaheena musharax madaxweynaha Faysal Ali Xuseen waxaynu leenahay ha noolaado waxaynu leenahay hambalyo xisbiga maanta dalka ka talinaya ee soo baxayana warin dhaadhaame waxa weeye waa UCID weeye soo xareeyay ay tahay ku xigeenka waxa la siiyay gobolada bariga salaajligeed isbedelkaas maanta muuqday laashigeed waxaan baaqalka ugu dirayaa gobolada bariga waxaana baaqaas ku salaysan yahay war maanta mashqaca la idin geliyay awoodiina baa la tijaabinayaa bal awoodiina bal maanta kaliya muujiyo oo cadaalad daradii Soomaaliland ka jirtay maanta cadaalad baa u eg tahay bal cadaaladda bal maanta waxaad muujisaan inaad bal awood aad leedihiin ugu dambeyntiina waxaa taageerayaasha halkaasi kala hadlay gudoomiyaha guddida kaambeynka xisbiga UCID ee gobolka Sanaag Maxamed Axmed Muuse aana xogeeya arrimaha bulshada xisbiga UCID gobolka Sanaag dhimayho dhalinyarada haday noqoto caafimaadka haday noqoto waynu ognahay heerka aynu ka taaganahay dhalinyarada scholarship ma hesho scholarship-ku Hargeysa ayuu ku koobaya xaqiiqaduna waa nooca haddaad aragto wasaaradaha dawladda ee Hargeysa waxa ay ka kooban yihiin dhammaantood deegaanka inta ugu dhow aragto musharaxiinta labada xisbi waxay soo joogaan Hargeysa saddexdaaba xisbiga cadaaladda iyo daryeelku hadday tahay caafimaadka hadday tahay scholarship-ada aynu tabayno hadday tahay xaqa shaqaaleynaynu u leenahay Sanaag ahaan hadday tahay musharax ku xigeenkii madaxweyne ay labada kaleba ay nagu dhici waayeen oo isagu inagu dhacay oo yiri waa dadku Somaliland ma kala go'ayso gobolada barina ka mid bay yihiin Barxad Maxamuud Gedi Bulsha TV magaalada Ceergaabo.